kusoo dhawaada Lager Production isku soo noqosho wanaagsan muddo ayaan ka maqnaa janaalka hadda kadib insha Allah wuxuu noqon doonaa janaal si toos ah loogu wada casharada insha Allah haddii aan leedmo sida title-ka ka aragteen Adobe Premiere iyo waxaan baran doonaa insha Allah After Effects balse waxaan ku hormari doonaa After Effects waxaan ku hormari doonaa Adobe Premiere kan ku hormarinaa Premiere-ka marka waxyaabaha uu qabto iyo waxyaabaha loogu talagalay in lagu qabto waa aad ay u badan yihiin balse waxaan isku daynaa insha Allah inaan soo koobno waxa uu noo qabto iyo sida wax loogu edit gareeyo adigoo wax ka yar 20 daqiiqo inaad ku barato ayaan rajaynayaa insha Allah inaad ku baran doonto Adobe-ka sida wax loogu jarjaro insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inaad soo raacdo waad ila daawato insha Allah sababtoo ah muuqaalkan wuxuu ka caawin doonaa inaad wax edit gareyso adigoo oonan qofna la tashan sababtoo ah waxaa jirto dhalinyaradii wax way duubi karaan laakiin ma yaqaanin sida wax loo edit gareeyo balse hadda maanta waxaan ku bari doonaa sida wax loo edit gareeyo anagoo u tagi doono duubista iyo farsamadeeda iyo waxyaabaha kale insha Allah casharo kale gooni noqonaysa taas balse maanta waxaan ka hadlaynaa sida wax loo edit gareeyo 20 daqiiqo ka yar ayaad ku baran doontaa insha Allah ila soco insha Allah waxaan bilaabi doonaa insha Allah haddii alla idmo markaan file soo kicinayno waxaan dhihi doonaa new project file marka tagno insha Allah waxaan dhihi doonaa new project kadib waxaan ka sii tagi doonaa project markaan ka tagno waxay naga caawinaysaa in aan furano project cusub marka hadda markuu Adobe kugu soo kaco intaan ayuu ku soo kicinaa intaas uu kugu soo kicinaa marka waxaad leedahay new project marka tiraahid meeshaan intaan kale waxba kama bedelaysid systemaadkan kale waxba kama bedelaysid inta waa meesha wax ku dhigay browserka hadda aad aragto waxa waay file-kaada meesha uu ku soo dhigayo waa marka waxba kama bedelin intaas kaleento hadda waxaan sameeynaa inta kale in wax ka bedelo loogu talagalin waxaan sameeynaa inta waxaan ku qoraynaa tasti ayaan ku qoraynaa tasti marka macnaheedu waxay tahay aniga file badan ayaa hore igu jiray file-ashaas hore igu jiray marka mar rabo inay wax iga waxyeelaan marka kan hadda waxaan ka dhigaynaa tasti markaan ka dhigno waxaan leenahay okay intaan kale waxba kama bedelaysa halkaas ayaa waxaad u baxsanaysaa file-ka aad u baahan tahay magaciisa inaad ku qorato halkaas okay ayaan leenahay markuu soo kaco Adobe-ka interface-ka koowaad oo ku tusaayo waa kan waxaa loo yaqaanaa source ama meesha muuqaalada lagu soo bandhigo muuqaalka aad u baahan tahay inaad jarjarto meeshan waa import media waa inaad ka soo geliso file-shii oo soo geliso file-ka edit gareyn lahayd meesha uu soo geli lahaa muuqaaladii waa inta waa goobtan waxaan loo yaqaanaa import media ayaa loo yaqaanaa inta waxaa loo yaqaanaa timeline waxa waaye muuqaalka meesha lagu jarjaro ama muuqaalka lagu hagaajiyo meeshan waa display board ama program waxay u taagan tahay marka inay kugu soo bandhigto muuqaalka sida kugu soo bandhigaysa marka waxay tahay markii muuqaalka aad meeshan soo geliso timeline-ka oo aad ka soo qaad importiga markaad ka soo qaado timeline inaad geliso kadib waxaad ka arki doontaa shaashadan ay kugu qoran tahay program marka insha Allah sida hadda loo soo geliyo sida muuqaalka loo soo geliyo waxay tahay inaad double click sameyso oo muuqaal soo gashato iyo inaad tagto file oo aad tagto meesha ay ku qoran tahay import ama control I meesha ay ku qoran tahay inaad tagto import file aad tagaysaa waxaad ka sii tagaysaa import marka intaan marka aad tagto waxa kale oo dhihi kartaa right click inaad dhahdo ayaa waxaad si awoodaa inaad dhahdo meesha ay ku qoran tahay importiga marka way fududahay in aad sameysato mise aad yeelato marka waxaan u baahnaa hadda file ay edit gareyno anaga file-ka edit gareyn lahayn marka waan soo qaadaynaa waxaan ka soo qaadaynaa file-keena meesha noo yaalo double click ayaad leedahay double click markaad sameyso waxaad ku sameyn doontaa muuqaalka aad u baahan tahay ayaa soo gashan doontaa muuqaalka aad soo gashan doonto marka waxaad leedahay open ayaad leedahay haddii folder aad u baahan tahayna import folder ayaad leedahay sababtoo ah marka muuqaal doorano wuu xirmayaa markii aad muuqaal caadi doorato wuu ka xirmayaa markii aad folder dooratana import folder ayaa lagu soo geliyaa folderka dhan ayuu ku soo xareynaya marka soo ugu soo xareeyo muuqaalkan ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan leeyahay open ayaan leeyahay open markii aan dhaho muuqaalkii meeshan u yimid meeshan waxaan dhahnay waa import media mar walba waxaa loogu talagalay in muuqaalada la soo gashto muuqaalkayga marka si aan u geysto xagga meeshan loo yaqaan display board ayaa waxaan geyn doonaa anoo jiidaya drag and drop ku sameynayo ayaa waxaan geyn doonaa meeshan ama double click ayaan leeyahay meeshan ayuu iga soo muuqday shaashadan waxaa loo yaqaanaa source ama meesha ku soo bandhigaysa muuqaalka in la jarjaro loo baahan yahay marka si aan hadda marka u jarjarno muuqaalkeena aan u keeno timeline-ka oo programkan uga soo muuqdo ama display-ga waxaan dhahaynaa right click qof walba uu yaqaana ayaan filayaa insha Allah marka right click markaan dhaho
waxaan tegi doonaa halkaas ay ku qoran tahay new sequence from clip meesha ay ku qoran tahay from clip markaad click siiso muuqaalkii automatic wuxuu tegi doonaa meeshii timeline marka inta waxaan ku sharaxnay muuqaalku uu yaalo aagan waxaan ku sharaxnay timeline marka waxa la yiraahdaa meesha muuqaalka lagu jarjaro intan waxa la dhahaa programkan waxa waaye muuqaalkii ayuu noo soo bandhigayaa marka si muuqaalkeena marka uu noogu soo bandhigo si qurux badan noogu soo bandhigto insha Allah waxaan sameynaynaa inaan jarjarno muuqaalkeena marka hadda waa green screen ka waa step kale waa cashir kale insha Allah balse hadda waxaan ku tusi doonaa sida muuqaalka loo jaro oo muuqaalka loo soo geliyo meeshaas marka muuqaalkan hadda u jeedid waa kii ceyrinka ahaa oo meeshii ii yaalay kana waa ku sequence-ga uu noo sameeyay sequence-ga waxa la dhahaa haddii aan dileedo kan oo dileed aan dhaho right click delete haddii aan dhaho kale delete haddii aan dhaho waxa waaye wuxuu ii noqonayaa ever sababtoo ah muuqaalkii inta ayuu ka baxayaa delete haddii aan dhaho kana fiiri muuqaalkii inta ayuu ka baxay sababtoo uga baxayn waxay tahay meeshaas waa inaad kala fahantaa kana waa muuqaal kana waa wuxuu ku yahay waa soo ceshtay control z ayaan ku soo ceshtay kana wuxuu ii yahay wax la yiraahdo sequence marka waxa waaye timeline-ka adeega ku joogo waa sequence waxa waaye inaad abuurato sequence waxaad ku shaqeyn doonto oo wax ku jarjari doonto weeye marka hadda waa kana double click haddaan ku sameeyo waa ii soo noqonaya timeline-keygii sababtoo ah wax cilad ah iyo wax kale kuma haysto sequence-ga marka si aad u aqoonsato mar walba waa inaad magaca click ku siisaa magacaad click ku siinaysaa kadib waxaad ku qoranaysaa muuqaalka taste ayaan haddana leeyahay sababtoo ah sequence-ga iyo inaan kala fahmo muuqaalka ayaan u baahanahay marka insha Allah maanta intaas ayaan baranaynaa hadduu alla idmo insha Allah waan isku soo noqonaynaa hadduu alla idmo waan rajeynaa insha Allah inaad ka faa'iideysateen insha Allah waxaan soo wadaa cashiradan kale waxay noqon doonaan sida garoomkii loo jaro sida transition loo geliyo title sida loogu sameeyo muuqaalada waan rajeynaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah hadduu alla idmo sababtoo maanta intaas ayaan ku ekeenaynaa sababtoo waa inaad fahantaa kolka hore muuqaalka koowaad waxaan ku baranay sida loo abuuro sequence ama loo soo galo Adobe markii la soo galo Adobe marka dhowr nooc uu kala leeyahay noocyada uu kala leeyahay waxay tahay Adobe Premiere Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe After Effects wuu badan yahay marka hadda maanta ka isticmaalayna Adobe Group uu ahaa laakiin wuxuu ka sii yahay familkiisa waa Adobe Premiere marka insha Allah maanta waxaan rajeynayaa inaad cashirkaas soo fahmi doontaan cashirka xigana waxaan baran doonaa sida loo jarjaro transition loo geliyo title loogu sameeyo marka garoomkayga xataa sida loo jaro waan baran doonaa insha Allah cashirka xiga inta ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.